booyadii baa markii dambe maalinkii dambe ku soo martay ninkanoo si qayo oo waddadiisa dhinac fadhiya way u istaageen maxaa kugu dhacay bay yidhahdeen waa la is afgaran waayey way arkeen ninkii inuu dhiigayo lugihii ay diir ay noqdeen dee calaacashaasoo guduudan bay noqdeen diirkii baa kaga dhax xabad diira kuma hadhin waa garta waa la qaaday booyadii baa la saaray xeradii makulli baa lagu celiyey waa la daweeyey aad ba u soo dhoweeyeen waxay ku yidhahan ninow haddaad caafimaad qabtaaye iska noqo ama xeradan iska joog waa garta haddee waa soomaali oo soomaalina ciyaartaa kuma qancee haddana wuu isa soo maqiiqay annagii bartayadii baan ka soconnay nimankii wayna reebeen waan soconnay 8 maalin markaan soconnay yaa wiil naga mid ahaa oo nin wadaada oo aanu ma inuu hadda nool yahay markaas laakiin Suudaan isku kaana dambeysay markaan Suudaan soo galay waa ninkii kala hadnay oo dukaan yidhi Hargeysan dukaan ku haysan jiray buu weligay 2 kilomitir ma lugayn buu waa nin ilaahay iska xaalkiisa iska ogyahay oo wadaad iska ahaayo daalabul cilmi iska ahaayo dadkan iska iimaan kale buu ahaa suu noola socday asagana labadii lugood baa muluq yidhi guduud ma dhaqaaqi karo taayir ma rogi karo wuu fadhiistay marka cagihii oo diirkii ka dhacay iyo kabtii iyo waxaa isdhex gelaya dhagaxdii iyo quruuxdii iyo ciiddii iyo wixii oo dhan baa taabanayo markaasuu marka ma taagnaan kara xataa taagni xataa ma xamilayo waa inuu fadhiisto lagu hafidsado annagii waan fikiray 3 nin baan nahay ninkii waa nin culus ma qaadi karo oo muddo ma wadi karo oo meel aan ninkii kaga tagno dee kii horena waan maqlaynay lalahaa malaa'yaha ku soo qaadana niyaddan ku hayn waxaan isnidhi maanta haddaad ninkan walaalkaa halkaa kaga tagto dee aakharana ilaahay wuu kugula xisaabtami oo qof walaalkaa aad cidlo kaga tagto haddaad qaadana dhib oo waa dhiboo dee meel ma gaadhaysa qof 3 ninoo nin dhan wada sida meyd ahaan u wada meel ma gaadhsiin karaan waa garta haddana waan fikiray waxaan idhi niyahow aanu wada dhimanno ama aanu wada noonaano ninka walaalkeena ayaana cidlo kaga tegin because qofkii hadduuna istaagi karin wax walba u jilicsan yahay waraaba hadduu u yimaado horuu ka dilaya aad iyo aad ilaa ma kici karo wax iskama dhicin karo waa wuu fadhiyaa meel raashin iyo wax uu sahay u doonanayo oo haddaan ka dhaqaaqna uu ku hagaagi karo male waa garta ninkii geedaanu doonannay xadhig yaan ka dirnay geedkii sidii naxaskii oo kale aan xadhka isku xidhnay 2 ulood aan xadhka ku xidhnay macawsahanagii qaar baan dildilaacinay waa ku xidhnay adigu wax naxash ahaan oo kale ninkii baan saaray waan la lugaynay 4 habeen baa naga xigtay xuduudka Suudaan saan u soconnay buurtii xuduudka Suudaan wataa markiina markaa waxaan ku soo baxnay reer Suudaan dad qabiil Suudaanna dega Eritreana dega oo bin Caamir la yidhaaho oo adi Soomaalida u yar dhow laakiin Carabi ku hadla kuwii baan waraysanay waxaan ku wuri Suudaan xaggee naga xigtaa jabalkaas idinka soo hor muuqda jabalka waa buurtaas idinka hor muuqata waa xuduudka Suudaan bay xagga hadda uga gudubtaan waa garta annagii dee dad daalan oo 4 habeen nin soo waday oo garbihii baxeen oo rafaadsan baan ahayn oo ooman haddana biyihii intay naga go'een markaan meeshii soo galnay baan waxaan nidhi buurtii markaan la simannahay baan waxaan ku nidhi niyahow bal dadkaas meesha teendhooyinkan ka muuqda yaanu biyo iyo waxaan cunno kuugu raadinaynaaye intaas annagana waan daalanahay adna waa dhiban tahay aan wax cunto iyo qof nala kaa qaada ama gaadhi wuxuun aan raadino